الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الأحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحكسوا إنه يريه متشر الزمن إيا وقتي إلا متك كدن بياك كفتنا إيا شربضا زمن كدن بياي وكفتنا بدنيه وانا كشر بدنيه إلى قيامة التماده مركز تؤون قيامة أسي دواننا فتنة واسي سيادة فتنة أقدرا إيمان دون تسيد النبي الشيقية أدون كسوغينا وخروج الدجال إنو الدجال صبحه عالم كان فتنيه ضدك انتي سبدان قاليسيو فتنكو مالبا مالين تكدن بيسواسي عسلانيا شركنا واسي بدنيا ما انت فتنك ان واجهينو وحيابها اقدرا وحا كمنا فتنة انترنتك صدح دي عقدية قدام بيسي اما دوري لواتنكي سمني قدام بيسي oo adduunka ku soo beeray fitanka iyo sharka ka dhashay wax la xisaabi kara ma aha dadka intooda badanna waxay moodayaan faa'iido iyo nafci ilaahay adoomada u soo saaray iyo nicmay u haystaan nicmada ku jirtay waa wax yar laakiin niqmada iyo sharka ku jira badan boqolkiiba 10 madhanna faa'iidada ku jirtay sharka ku jiray boqolkiiba 90 waa ka badan yahay fitnadaasi iyo sharkaasi oo dadkii oo dhan wada saameeyay cid uu ka tagay male caalamkii oo dhan wuxuu ka dhigay hal tuulo in lagu wada nool yahay oo subaxdii markii la soo toosto wax walba la wadaagayo وحولبا بدون استثناء وحولبا لو وداغيو عالمكي كلا خيدخدنا كلا فوغا اسكور هينين ايا وحو كدغاي دد هل توله اما هل غري كو ودا نولو waxay ku wada bariyeen og waxay haystaan wadaagaya saaytay hadana ya gacanta ku haya shayaadiintii insiga iyo jinniga gacanta ku haya bini aadamka intii ugu sharbadnayd ba gacanta ku haysa معاد كفلنا يسامر كذي هل حلاله هل حرامي نريك حلال ما دشوا انت بني آدم كأوجشر بالنيد وحي قعنتك وهاي وحل قفلي كرا وحي رواي سيداس درادت وحلقة مرمان إن أسيد حقيقة دي يسيد وياهي انت نفهنه كدبنا أنو لم عاملونه si wixii wanaaga ku jirana aan uga qaadano sharkiisa badanna aan uga badbaadno wayna ugu kala xtagin dhibaatooyinka uu xambaarsan yahay waxa kamid ah dadka in aqaa'ida iyo mabaadi'da saxda ah laga shaki geliyo bal in laga saaro ilaahay jiritaankiisa in laga shaki geliyo allah kelinimadiisa in laga shaki geliyo allah tabaaraka wa taala xuquuqdiisa in adoomada lagu diro in laga saaro adoonnimada ay ilaahay adoomada u yihiin oo shayaatiin adoomo looga dhigo in madaahibta khariban la faafiyo nin kasta oo xumaan watay xumaantiisii meeshuu soo dhigaa kii ilaahay inkirsanaa falsafadiisii meeshay taallaa كي إلهي تبارك وتعالى لدقالما يدقالك كوهي فلسفدي سميشي تالا كي آخر إنكر سنة فلسفدي سميشي تالا وحويان وويل قشين أردن ليسوك ينيوه بل مواقع ذا قاركود يا ويبسايديا ذا قاركود يا صفحات كقاركود سعد وحيدتك أقول يريان إن شيطانك لعابده هذه الشيطان كعبادتي سو أي هاي تسقر صون إنه بني آدم كأوجش شقيسته أو لا أطيعه أو لا أمر قاته عبادتي سو أي ساعة هانشرتي
maanta ururaad jira la jahraya oo bannaanka la taagan shaytaan waa ilaahay hal caabudo mawaaqic bay leeyihiin meelay wax ku faafiyaan bay leeyihiin afkaartii kharibnayd oo dhan meeshay taallaa hadday gaalnimo tahay hadday ilxaad tahay hadday zandaqo tahay hadday bidca tahay hadday khuraafo tahay hadday khusacbalaad tahay wax kastoo xuma meeshaasaa la dhigay markaasada adigoo muslim ah oo xataa diintaada aan wax badan ka garanaynin oo waxaad meesha ku arkayso aan kala shaandhayn karin oo kala shiili karin oo maxaa sax iyo maxaa khaldan aan kala saari karaynin ayaad meesha galaysaa oo wax ka raadsanaysaa markaas waxaad ku dhacaysaa shabak lagu daadiyay shabakad lagu dhigtay baad ku dhacaysaa dhalinyaradii muslimiinta iminsa maanta soo baxay iyagoo mulxidiin oo ilaahay ba rumaysnayn dhalinyarada qurbaha jiray daraasaadka hadda soo baxaya waxay leeyihiin dhalinyaradii ku kortay wadamada qurbaha ee asalkooda qoysaska muslimka ka soo jeeday 25% daraasad la sameeyay hadda u dambeysay 25% ilaahay ma rumaysna waa caruurtii iyo qoysaska muslimka aabo iyo hooyo muslimay ka soo jeedaan qoys muslimay ka soo jeedaan waxaas halka gaarsi marka waxa ugu horeeya ee hadafka ee targetka la burburinayo waa aqaa'ida iyo mabaadiida saxda ah ee kutubta ilaahay la timid ee rusushu la timid ee khalaa'iqda ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka rabo u abuuray taasa hadafa in la burburiyo adraartu waxa kamida duulaanka maskaxda in ummadda maskaxda laga qabsado madax banaanida maskaxdu inay meesha ka baxdo inaan u fikirno sida reer galbeedku u fikiro ninka cad sidoo u fikiro gacanta ku haya arrimaha noocana sidoo u fikiro inaan u fikirno sidoo u dhaqmo inaan u dhaqanno sidoo wax u arka inaan u aragno علشان waxa weeye madax banaanidii maskaxda iyo fikirka in ummadaha laga qabsado wana mid maanta in haysato waay dhaqamadeeni wax fara badan baa burburay culture-keeni wax badan baa burburay sababta burburisayna waxa weeye halka wixii laga qaatay ayay da'yartii iyo dhalinyaradii qaateen kadibna dhaqamadii la lahaay la madax banaan haday diin ka soo jeedo iyo haday mujtamac muslima ka soo jeedaba dhaqamadii baa burburay inagoo dhan waxaynu noqonay adoomo maskaxdoodu meel kale laga maamulo injinkee inugu jiraay meel kale lagu sameeyay jidhku waa Soomaali laakiin injinkii maskaxdu waa Yurubiyan waa nala qabsay marka meeshaas la iska qabsado waxa kamid ah dhibaatooyinka ugu dardaran ee ku jiraay akhlaaqdii wanaagsaneyd oo la dilo in la faafiyo iyadoo loo marayo faafinta mawaada ibaaxiga ah akhlaaq xumada dhaqan xumada fawaaxishta iyo zinada muxuu ahaayay fasaad noocu dooni ha noqdo akhlaaqiya beenta tazwiirka iskhayaanida magacyo khaldan in muxuu ahay la isticmaalo in umada akhlaaqda laga dilo cifadii iyo dhowr soonaantii in la dilo cifadii iyo dhowr soonaantii in la baabi'iyo xishoodka in la baabi'iyo in meeshaasi laga qaato duruusta ah bini aadamku waa sida xayawaanka waa isku fasaxan yahay ragii oo qaawan dumarkii oo qaawan fawaaxishtii oo la sameeynayo qashinkii oo socda ayaa banaanka yaala dhalinyaradeenii iyo caruurteedina waxaasay ku fasaxan yihiin maxaad ka filaysaa marka ilmo waxa daawanaya oo 10 jir ah oo 8 jir ah oo 7 jir ah oo waxaasi ku barbaarayo daawanaya maskaxdiisa ay galayso markuu weynaado maxaad ka filaysaa waxaad ka fishay wax weeyaan mid ugu dhow inuu ku bilaabo walaashii inuu ku bilaabo waana dhaqanka dadkani waxaanu ka soo jeedaan dhaqankooda waay maanta waxay ilzaamiyeen oo iskuulada qasab kaga dhigeen caruurta yaryarka ah in iskuulada lagu baro qaabka la isugu tago oo waliba qasab oo sandulla ah oo aan baryo ahayn waxaasa marka gacanta ku haya sidaas daraadeed wixii akhlaaq la dhihin jiray iyo dhaqan wanaagsan in la burburiyo laga takhaluso ummadu waa akhlaaq وأخلاق هذا أخلاق دويدنا وحشر ماه قوم اللوط بإلهي وحو بابئيي أو دولك أولقوي أو كرلو إتلقى كان الدبرقي علشان وحوي أخلاق حمو عالم كنا هدو سيدان كسي السعود النهاية دي سيدا مانشيه سمفوغا لأنه أمد مرضي أخلاق ظلو ميسو كون كإني سيجوك تو ما يستاهش إلهي سنان كيسو سيداوه إني سينولاتو ما يستاهش
وهل اسمك أخلاق دي بربورتي باباضي قبلهاني عرورتاني دلنيرداني وفوي وحكم إذا أضرارت يدباتوين كإنترنت كوليه هي وحلي هذا الإدمان إنه روح دبتر كون نقضه عادة وسن جوين كرين وكجو كرين إنه كون نقضه وقت جيسي ورنا هالكا قال أما وقت بدن كيس هالكا قالي تذكر بس شيء وجود شيران مركز دم بروح نقول يا شيء نفتي سلقب سطو وسن دين كريم به ما بدين كرتد به وحد مودي هداد كجعضه كأن هذا عنتوا يوك هذا قاعد يسرو كله هذا أمنو كله ما تشوقي كرتد وحور نقضي الروح السديد دتك يعني مخدرات كمان دوريها استعماله كله روح من دوريها استعمالها يمدين كره كمان مقنان كرو لأن تشركي سيب الله قبصدي دتفر بدن مركب واحد نقضين نوع عاصو كله من دوري يكون نقضي مركزين كتشوقي كريد مدين كران ما أنتوا دن وكل حشريان وحا شقينا يا نجرن ميس كان كجورو كان قال يا كان كتجو كان فيري كان بالكتجو هذا كان فيري ميد بميد وجور ميد بميد وجتك نتيجته محي نقطة مركا نتيجته واحد نقطة وقت جاي يلومي أما هالنقطة كوع عيارها هي كوع وحيالها اللجو ما ويلده هي اللجو ده أما هكون نقطة كوع دردشة شكذا إسكمال يعني كان معنى لا أنت هي كومنتي هذا معنى لا أنت أما هالنقطة كوع كلاتة حمانة أنت كسياسني أي كتير تبع هالنقطة سيداس درادد وقت جاجو وقالي نبي قلنا وحده صلى الله عليه وسلم روح إسلامي موناجي سوحة كم ذا وحن فائدة كتير إنه سقطك وقت جاجا إلالي هذيك الأول وقت بعد كوبان تاعي ساعدها كمرة يوا وقت جاجا وعمر جاجي هو وقت جاجا مشهد إلى شن لهيد مشهد كتير تاع ساعده وساعده 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 ذاتك قاركود وحلقة بيني مال بيني كتيران وقت جيلون وحلقوا بران لها وقت جيلون لقوا شقيسان لها وقت جيلون عروت لقوا تربيين لها وقت جيلون غيرها لقوا دقي لها وقت جيلون الدنيا ده لقوا عمري لها وقت جيلون أمد لقوا معمول لها وقت جيلون لقوا عبادة يسن لها كل معلمي وحنعلمي هاي محافة يدو مركز لقليل انت عزي هلون تي محا نتيجة وحاكم ده لباتوين كمكوبي كرني واوين إن لقى مشغول إلهي طاعة ديس يجود الشذا واجباتك الدين عباداتك الله القرآن الكريم كامركو الشيء خمرضة إيه خمارك صوبت الله حرمي الله وحده تبارك وتعالى وحى الله حرمي إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إنه نحدين ندق الشيطان كعداوة إسنعي ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة إلهي ذكر جيسية صلاة دنا إنه إذن كعليو وخمردي خمار كصوابت الله حرمي إنترنت كدتك لجوك للدلاء قبائشي با استعماشا إنتي مدك لجيني سبا استعماشا شر أو نبا كالصعدة سيدو كليتو وحلقة مشغولة عبادة دي إلهي ذكر جيس ولجوك شراء آذان كبار دعي حي على الصلاة حي على الفلاح ولجوك شراء دان لجمالها صلاة دي بهدي لي ما دام مساج كدحدي يسيبوا إنه قد حشراء مصيبة لأن وحوي موبايل الذي بالوتا صلاة مركز لجلا يدتك قاركود وحى وجودا بيا صلاة مركز جليان أي ضالع عدان وإنترنت كيني جلان واحد إنه واتساب كفيريو فايبر كفيريو يوتيوب كجلو فيسبوك كجلو إلى وجلنا صلاة بمجيل كرو دتك قاركود إيش شيئا ساري صلاة مركو السلام عليكم يدادو كبحو استغفر الله إسقور دين بموبايل كلا صباحية مركز صاو فيريني حتى استغفر الله مدي نين ولا لها كم إذا هو إيش يجي نين بانكو قربتو كان يقول صلاة جوده هذي سو كتيرة صلاة جوده هذي سو كتيرة با تلفون كيشان قري انتو الله صباحي أو فيريي أو ركرجي أيو قشطي صلاة دي سينا وسوت سيوت وصلاة الرحلة بالله عليكم مع الله والمرك وقت متشرو عبادة متشرتو دين بعضي علمي جي بابا طلبة العلم جي دين تبر الله يد آوي انت وضبط هالكاس اللي مشغول سيه نينكي الشيخ ها وحلا جبر لها
intii wax laga faa'iideysan lahaa waxa la leeyahay isla ka sawiro waxa lagu dagaalamayaa naftu uga dhacaysa isla ka sawiro war cilmiga ka qaado sawir waxba ku dari maaye afu umadii la qabsay nala tag taladanadii gacanteennada kuma jirto afa dhacday adduuniya aakhiraba waa khasaarsanna waxa kamida dhibaatooyinka ugu badan ee internetku leeyahay qoysaskii oo burburay qoysasku haday burburaana mujtamaci burbur laana mujtamaca iyo bulshadu waa qoysas isu tagay qoysku haduu burburo mujtamacuna burbur qoyskii waxa burburiyay internet baa burburiyay ilmihi waa dayacmeen hooyo mas'uuliyadeedii gabtay odaygii mas'uuliyadiisii gab caruurtii dhinac kale u foofeen miyaad aragtay hal qol baa lagu wada jira aabihii dhinac buu mashquulsan yahay badweyn kale ku jira hooyadii dhinac kale u mashquulsan tahay badweyn kale ku jirta lama sheekaysanayo caruurtii badweyn kale ku jiraan mid walba qolo kala haysata mid walba qolo u talinaysa qolo kala maamulaysa ma gurigaas dhisnaanaya hooyo ma jirto mas'uuliyadeedii dayacday guriga waa isku dhaxyaacsan yahay caruurtii waatan odaygii warkiisa iska badaa guryaheena waa burburayaan furitaankii baa batay xuquuqdii baa la gudan waayay aafadaasa socoto guryihiina inaga burburay haday guryuhu inaga burburaan waxba inoo malaabno waxa kamida aafaadka ka dhashay internetka mustawihi tacliinta iyo waxbarashada caruurteena hoos u dhacay waxbarashadii caruurtu hoos bay u dhacday laana wax way ilmaha maskaxdiisii loo baahnaa inuu geliyo ama waxbarashada diiniga ah midda maadiga nafciga leh wuxuu gelinayaa inuu mawaaqic kaliya meelo kale maanta dhan ku mashquulsanaado qalbiga bini aadamkiya maskaxdiisuna laba ma ah waa hal shay haduu mashquuliyo ka kale meel uga ma banaana ma ja'ala Allahu lirajuli min qalbayni fi jawfihi hal qalbi baynu leenahay hal maskaxna waan leenahay taasi haday wax buuxiyaana meel kale kama furra caruurteeni wax baran lahayd badaasay ku jiraan وللاسف waxa wax aad looga xumaada ah in badan oo kamida inaga siinay miyaad aragtay ilmo 8 jir oo 10 jir ah oo loo iibinayo mobilada kii ugu dambeeyay miyaad aragtay ilmo 10 jir ah oo iPhone wata iPhone iPad wata war muxuu ku sameeynaya igaga ciyaar baa leeyahay ku mashquuli xageebu ku jiraa wali maskaxdiisu ma samaysmin waasic diiniya male ma kala garanaya waxan ma kala shaandhayn karo waxan maxaa fiican maxaa xun ma kala shaandhayn karo adigoo waalidana wixii baad badweyntii baad ku siidaysay markaas waxa tiri iyaaka an tabtalla bil maa biyaha iska jir baad tiri intaad badweynta ku tuurto seebu biyo isaga jiray adaa ku dhex tuuray haway mas'uuliyadii aw waalidnimadii away wixii ilaahay ku raaciyay يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد الرجل مسؤول راع ومسؤول عن رعيته وقالوا قويدين دونا ما أنت قيامة نعم حرورتني تعلين دنع والبربر باكور عي انترنت كأنكسي دين سببتيس أفاتكي سوحا كم ذا مشاكل فربضان وعافمات بوليه شركاغا ومرون عافمات كيسا إناد ما انترن انترنت كهور فردو سيداس درادت با خبرادو وحي تلماميان عافمات حمادا كردالتا وحا كميدا شركة سوغادا عيل كالسيادة دا ما دقاقيسيد ما نسعسعونيسيد ماشاد ما انترن فرددا شركاغي واسقاليا وادنا عيليسا عيل كونا عذر ربو أسألويا waxa kamida dhibaatooyinka ka dhasha laf dhabarta oo adkaata iyo murqaho bini aadamka gala iyadana cudurro badan baa ka dhasha luqunta oo iyadana xanuun keenta lafta dhabarka hoose oo iyadana kala durugta waxa kamida xanuunada ka dhasha indhahaaga aragoodo daciifa imisa cudur oo jirkaaga soo gaaray cudurro nafsiya sidoo kale ruuxu wuxuu bini aadam ku yahay inuu dadka la mucaamaloodo saaxiibadii la noolaado socdo la sheekaysto laakiin markaad bad kaleeto ku dhex jirto waxay leeyihiin ruuxii waxa ku dhaxay iktiaab qalaq isla hadal inuu dadka ka dhex baxo
inuu dadku la noolaan lahaa intuu ka fogaado mar walba jeclaado inuu keligii u noolaado meesha uu ku jiro dadka kale ma rababa sheeko kale ma rabo yaa cid kale inuu la sheekaysto ma rabo halkaasuu rabaa inuu ku jiro iktiaab waay waa qalaq waa intiwaa'iya ruuxiyo dib isugu noqday waay cudurro badan buu leeyahay dad badanna maanta haya waxaa ugu dambaysiinaya jaraa'imta iyo dembiyada waaweyn gaangiska wax dhaca mukhadiraadka iyo maandooriyaha beenta iyo kadibka cisaabaadka ijraamka ka shaqeeya ayaguna halkaasay ku jiraan dhalinyaro fara badan oo dil iyo wax burburin iyo dhiigdaadin iyo qas halkaasay ka bartaan bal wax qarxin iyo wax kharibid iyo amnigoo lagu ciyaaro halkaasaa laga bartaa carruurtaada markaad ku sii dayso filimay daawanayaan dhaqamay daawanayaan waa dhaqamada bara carruurta yarta iyo da'yarta barta way jaraa'imta iyo dembiyada sida loo sameeyo sida wax loo dilo sida wax loo kharibo sida wax loo dhaco sida wax loo burburiyo ayaa laga baranaya warka murtidiisu waxa weeye internetu waxa weeye waa qol qashin oo dhan ku jiro oo xoogaa yaroo nafciyana ku jiro qashin noocu dooni ha noqdo caqiida ha noqdo akhlaaq ha noqdo bulsho ha noqdo maali ha noqdo qashin oo dhan baa ka buuxa waxoogaa yar oo nafciyoon badnaynna waa ku jiraa dariiqadii waxaa lagaaga baahan yahay inta nafcigana aad ugala bixi lahayd dhibkaa iyo aafadaa ballaadhanna aad uga badbaadi lahayd aduguna aad uga badbaadi lahayd ehelkaagiiyo carruurtaadana aad uga badbaadin lahayd haddaadse istidhaahdo meesha nafci baa yaalla wax ka raadso waxaa aad ula yaabaa dhallinyaro aan aqoon diineed lahayn oo mawaaqicda iyo meelaha ka raadsanaya diin ka raadsanaya iyo caqiido saxsan waxaa laga yaabaa inuu gacanta u galo shiici waxaa laga yaabaa inuu gacanta u galo muctazili aayado daliilinaya waxaa laga yaabaa inuu gacanta u galo fikrad kaloo haddaama ah oo qur-aan iyo sunno daliilinaysa maalinta dambe wuxuu soo baxayaa isagoo shiici ah isagoo muctaziliya isagoo ladiiniya isagoo waxba rumaysnay sababta waxa weeye meel xunbuu wax ka raadiyey meeshaasi waa meel halisa waana imtixaan maanta waxa laga qaban karaa ay yar tahay laakiin waxaa laazima inaynu khatarta ku baraarugsannahay wixii nafcigiisana si fudud aynu uga qaadan karno dhibkiisana inagoo dareensan aynu ka taxadari karno iska ilaalin karno innagay ilmaheenna iyo carruuraheenna iyo inta aynu mas-uulka ka nahay iyo ummadda guudba waxaan kaga hadli doonaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala khudbo kale ama kelimo kale siyaabihii laysaga ilaalin karaa adraarta iyada waxoogaaga yarkee nafcigee ku jirana loogala bixi karayo ayaynu kaga hadli doonaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala salluu وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك